الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كالمدن أنضوى يمات وإسنين ترسك إسلام هنا ويهي شنتي بشي شنات كن يافر بقل يسقالي صدنك هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ووافقسا نبي لواتنكي بشي كواد 2018. kelmadaydani waxay ku saabsan tahay xurmatu dami lmuslim, qofka muslimka ah dhiiggiisa in la daadiyaa in ay xaaraan tahay. waxay ku soo beegmaysaa kelmadani waqti aynu wada ognahay in meelo badan oo dadka muslimiintu waxa weeyaan ay degaan dhiig badani uu ku qubmayo ama uu dhiig fara badan lagu daadiyey, ama qaar imikaba socda oo waxa weeye shalay dagaallo dhacay oo dad muslimiina oo walaalo ah dhex maray. arrinka noocaasa markaa in aan dareensiiyo oo aan u soo bandhigo iyadoo ay naseexo iyo ilaahay dartiiga tahay, in anoo rajaynaya in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku anfici doono cid kasta oo codkayga uu soo gaadho ama muuqaalkaygan iyo kelmaddan dhegaysata, in ilaahay subxaanahu wa tacaala ku anfici doono. waxaan doonayaa kelmaddan kooban inaan dareensiiyo dadka walaalaha ee muslimiinta ah ee dirirta iyo dagaalku ku dhex marayo ama isku dilaya waxaan sharcigu bannayn oo aanu fasixin, isku dilaya inaan u sheego arrinka noocaasa, isdilka iyo dhiigga muslimiinta in la daadiyo meesha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka joogo iyo rasuulkiisu sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam ee meesha uu ka taagan yahay, iyo waciidka iyo goodiga adag ee ku soo arooray in qof muslima in waxa weeye dhiiggiisa la daadiyo. waxaan ku kaaftoomi doonaa aayaadka iyo axaadiista ku soo arooray arrinka, maadaama maqaamku yahay maqaam waciid iyo waxa weeyaan goodiga ku soo arooray bayaamin laysu bayaaminayo, inaan tilmaamo aayaadka iyo axaadiista ku soo arooray arrinka. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi fii kitaabihi alcaziiz: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. آيات إلهي سبحانه وتعالى وحو tilmaamay qofkii qof mu'mina dila oo si ula kasa u dila, camdiya u dila, abaalmarintiisa iyo wuxuu la kulmayay arrinkaa uu sameeyey daraaddii waa jahannamo weeye, walciyaadu billah. jahannamadaasoo uu ku waarayo, ilaahayna waa u cadhooday, naxariistiisana wuu ka fogeeyey, waxaanuu weliba u diyaariyey cadaab aad iyo aad u weyn. walaalayaal, aayadda u fiirsada macnaha ay xambaarsanta iyo waciidka adag ee ku soo arooray. qofkii qof mu'mina dila wuxuu helayaa oo aakhira uu la kulmayaa ama uu galabsaday oo uu shaqaystay oo ciqaab u noqonaya waa jahannamo inuu ku waaro, inuu alla u cadhoodo, inuu alla nacdalo naxariistiisa ka fogeeyo, iyo inuu cadaab adag oo xanuun badan ilaahay subxaanahu wa tacaala u diiday. waxaa aayad kale alla ku tilmaamay: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. qofkii markii ilaahay uu sifaynayay dadkii wanwanaagsanaayo muuminiinta, wuxuu yidhi waa kuwii ilaahay aan la jirkii cid kale caabudayn, oo ilaahay cid kale iyo macbuud kale aan ku lamaanaysiinayn markay ilaahay caabudayaan, isla markaana aan dilaynin naftii ilaahay xarrimay in la dhiiggeeda la daadiyo xaq mooyaane wax kalena aan ku dilayn, aan sinaysanayn. kuwa waxa weeyaan sidaa ka dheer weeye dadka mu'miniinta. markaas alle wuxuu leeyahay: waman yafcal daalika yalqa athaama. qofkii laakiin intaa mid ka mida sameeya
إلهي سبحانه وتعالى إله كلا يا معبود كلا عبادتي سلا وداتها إسلام كان نفدلا نفيه إلهي حرمي أما الزنا قفك صدح رامد كميد السماء إلهي وحليه يلقى ثاما دنبي بولا كل مية ووحش قيسنا يا قوسنا يا ودنبي يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا عذاب كان والله بالله بيا عذابك والله بالله بيا عذابك ودرجات عذابك ودرجات مركع عذابك قفك كميد السماء ويكمل تاي النف إن لقويو أن شرعك بناين إن لقويو قفكي قويه دلا عذابك والله بالله بيا وليبا وكواري عذابكاس isagoo dulaysan markaas alla wuxuu leeyahay illa kii toobad keena ee amal wanaagsan shaqaysta kuwaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala dunuubtooda wanaag buu ugu bedelaya aayada saddexaad alla wuxuu tilmaamaya min ajli dhalika katabna ala bani israa'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a Ilaahay wuxuu leeyahay arrinkaa daraaddeed oo inuu sunneeyey dilka haabiil iyo qaaruun markii uu waxa weeyaan qaabiil uu dilay haabiil markii uu qaabiil dilay dilkan labadaa walaalahe ilmo aadan dhex maray daraaddeed ayaa waxaanu faral yeelnay oo waxa weeyaan ku xukminay reer banu Israa'iil oo kutubtii lagu soo dejiyay nabiyadooda loogu sheegay qofkii qof dila naf qofkii gooya xaq darad ku gooya ama dhulka fasahaadiya wuxuu ka dhigan yahay qofkii qof dila naf gooya xaq ay galabsatay la dilo na aanay waxa weeyaan ku dila xaq la'aan ku dila ama fasahaad ay dhulka fasahaadisay la'aanteed ku dila wuxuu la mid yahay mid dadka oo dhan dilay buu la mid yahay marka qofkii qof dila naf muslima oo aan galabsan sharcan wax lagu dila aan galabsan qofkii dila wuxuu ka dhigan yahay arlada oo dhan dadka ku nool mid dilay oo kale ayuu la mid yahay xagga dambiga kii nooleeyaana wuxuu la mid yahay sidii waxa weeye mid dadka oo dhan waxa weeye nooleeyay وأنا تفاصيل تيسارين علماء قاركون حق أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هدين من العسنو في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه حديثك صحيح البخاري كسغن عبد الله بن عمر سجى أبيه بالله كره للنغضو وحت المامية نبي يقولوا لا يزال المؤمن في فسحة من دينه قفك مسلم كاهي أما مؤمن كاهي كسول مايو إنه دينتي سواسع كغسقنا ما لم يصب دما حراما انت آنو ديك حارانا كل عين كسولي ما إنه دينتي سواسع كغسقنا في سنن ابن ماجه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه حديث كاسي براء بن عازب لقورنا ابن ماجه نوصو صاري وحولي رسولك صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق الدنيا دا أردن أولوايو أيا كفضت إن قف مؤمن بغير حق لقدله في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي كورنا يا حديث البخاري صاري النبي يقول اجتنبوا السبع الموبقات تضبط وحلاقة يقفك هلاقة يا تضبط كديرادة وحكم إذا تضبط عص وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إن نفل قويو حق ضر لقو قويو نفيه إلهي سبحانه وتعالى وحرمي إن لو حويا لدلو في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحنبي ابن عمر أوليه رضي الله عنه إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله ورطاتك مهلكاتك وحيابها قفك هلاقي يعطو كل عآن كبح كرين وحكمده نفء لقويو أن إلهي سبحانه وتعالى بنين أما بغير حق لقويو في سنن النسائي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود النبي قوله كوريه رسولك إنه يري تلمامي قف دلي كي ودلي أيام مالنت قيامة سوق بصندونا وهو حوي كلر كسوق بصندونا
markaasuu odhanayaa ilaahayow kan weydii wuxuu igu dilay. alle markaasuu weydiinayaa isagoo og wixii uu ku dilay ayaa alla weydiinaya. wuxuu odhanayaa waxaan ku dilay hebel si aan u ciseeyo, hebel si aan u ciseeyo waata maanta taagan reerkayaga sidaan waxa weeye sharaf ugu soo jiido, dhul yaroo bannaanoo waxa weeyaan reerkayaga laga sheegtay sidaan ugu soo dhiciyo, yacni reerkayagu say u sharaf u yeeshaan. alle wuxuu ku odhanayaa innahaa laysat lifulaan, naftanaad goysay fulaanka aad u dishay daraaddii qofka ma laha, waxaad shaqaysatay oo la noqotay dembigeeda. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي وحو كوري أبي هريرة في صحيح مسلم إن النبي قول عليه الصلاة والسلام وقت بائمان دونا كلا الدلي وحل قدري آنو قرانين كالدلينا وحو قدري آنو قرانين. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وحو تلماما يا ابن عباس وليه هاي وكنت إن آنو التوبات لهين قفكي وحاوي قف بغير حق دلا. waxaan u daliishaday ibnu cabbaas radia allahu tacaala canhu xadiiska iminka aynu akhrinay oo uu odhanayaa qiyaamaha maadaama uu qabsanayo waxa weeye towbad ma laha, oo maalinta qiyaame uu cunaha qabanayo uu iska laalaadinayo kii la dilay uu qabsanayo kii dilay. fii saxiixi muslim min xadiidi abi hurayra radia allahu tacaala canhu wuxuu tilmaamayaa adkaynta la adkeeyey dhiigga muslimiinta in la daadiyo iyadoo nabigu tilmaamayo ayaa nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam man ashaara ilaa akhiihi bixadiidatin faina almalaa'ikata talcanuhu xataa yadacahu wain kaana akhaahu liabiihi wa ummih. qofka qof mu'min ah ama muslim ah waxa weeyaan ku fiiqa hub ku fiiqa ama mindi ha noqoto ama qori ha noqoto iyo waxa la midkaa fiiqitaan keliya ku fiiqee sidaa ugu xaggiisa u jeediya malaa'igtu way nacdalaysaa ilaa uu waxa weeyaan uu dejiyo oo qoriga iyo hubka uu ku fiiqayo uu ka leexiyo mooyaane. haddii uu yahay duu doono haba noqdo walaalkii hooyadii yaabihii dhaleen ha noqdeen, maadaama uu ku fiiqay arrinkaas waxa weye wuxuu ku mutaysanayaa in malaa'igtu ay nacdalayso. walaalayaal nusuusta aynu tilmaamnay axaadiista ee aayadakaasi oo ah tusaale ee aan soo wada koobin ee tusaale keliya ah waxay daliil u tahay oo ay tusaysaa sida ay u adag tahay dembigeedu uu u weyn yahay qof muslim ah in dhiiggiisa la daadiyo. maantana waxay walaalayaal ognahay sida arrinkan loo fudaydsaday wax yaroo aan waxaweye qiimo badan lahayn in waxaweeya dadkii ay isku dilayaan oo dad walaalo ah oo nasab walaalo ah oo diin walaalo ku ah oo degaan walaalo ku ah inay waxa weeyaan hub isu qaataan oo ay islaayaan oo 10 iyo 20 iyo wax la mida iyo hadduu doono mid kaliya baa noqdo naf kaliya ha noqotay lagu jarayaa oo waliba ay soo noqonaysaa. arrinka noocaas waxay ku tusaysaa in diintii alle subxaanahu wa tacaala laga fogaaday, in aan la dareensanayn waciidka iyo ciqaabka ka dhalanaya arrinka noocaas ee qofku uu samaynayo. nusuusta aynu akhrinay aayad keliya iyo xadiis keliya ayaa waxa weeye qofka qalbigiisa iimaan ku jiro ayaa ku filan si uu uga joogsado waxa weeye ficilka noocaasa. waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiinayaa in ilaahay subxaanahu wa dadka muslimiinta inuu xaqa u soo celiyo, in waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala garansiiyo diintooda dunuubta ay galayaan ay gacmaha kula jiraan ee dhiiggaasi ugu weyn yahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka badbaadiyo. waxaanan ugu baaqayaa qof kasta oo codkaygaasi uu soo gaadho, waxaan ugu baaqayaa in uu waxa weeye aayadaha iyo xadiista aan akhriyey inuu kuwaana qaato, inuu ka toobad keeno, inaanu taageerin, inuu ciddii uu garanayo ee hawshaa gacanta kula jirta inuu nusuusta iyo axaadiista iyo aayaadkaa gaadhsiiyo oo uu kuwaaniyo. wasala allahu wasalama wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin.